kadidi baladad baa u dhigo ushubadhi doona badaliye miyaan dhibyaraan ku dhibay calanko miyaan dhibyaraan ku dhibay calanko markala dhalanteed ugu dhiibi karaa markala dhalanteed ugu dhiibi karaa markala dhalanteed ugu dhiibi karaa madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay weheliyaan waftigii Somaliland uga qayb galay wadahadalkii Djibouti ku dhexmarayay dawladaha Somaliland iyo Soomaaliya ayaa maanta ku soo guriyay noqday caasimadda Somaliland ee Hargeysa. madaxweyne Biixi iyo waftigiisa markii diyaaradii sidee ee soo caga dhigatay garoonka diyaaraduhu ka duulaan kana soo degaan cigaal waxay halkaasi salaan sharaf uga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Somaliland oo madaxweynaha iyo waftigiisa ugu diyaaraha garoonka diyaaradaha. madaxweyne Biixi gaadiidkii sidee markii ay ka soo baxeen garoonka diyaaradaha ee Hargeysa waxay halkaasi kala kulmeen soo dhaweyn ay diyaar ugu ahaayeen boqolaal dadweyne ah oo ka tirsan kuwa degmooyinka caasimadda ee Hargeysa. dadweynaha madaxweynaha iyo waftigiisa soo dhaweynayay waxa ka muuqatay shucuur wadaninimo iyagoo nololayay calanka astaanta waxa qaranka Somaliland iyo caleemo qayoon ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha iyo waftigiisa. madaxweyne Biixi oo gaarigii sidee guudkiisa saarnaa waxa uu salaan siinayay dadweynaha isagoo u gacan haadinaya sida diiran ay shacbigu u soo dhaweynayaan waxaana guud ahaan wafdiga madaxweynaha iyo shacbiga Somaliland maanta u daarnayd madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waftigii uu sidee markaa isugu soo biyashubteen xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland oo ay ka dhacaysay munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha iyo waftigiisa isla markaasina madaxweynaha lagaga dhageysanayay khudbad ku saabsaneyd wadahadalkii Somaliland iyo Soomaaliya ku dhexmaray dalka Djibouti. waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaasha labada xisbi mucaarad xubno ka tirsan golaha wasiirada xubno mas'uuliyiin oo xilal ka haya dawladda taliyayaasha kala duwan ee ciidanka qaranka iyo mas'uuliyiin isugu jira haween iyo dadweyne kale. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay waxa uu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay shirkii Djibouti maalmahan uga socday Somaliland iyo Soomaaliya. shirka markii la dooday cudurradooda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dawladaha oo ka Mareykanka ugu xoog roora waxa loo go'aamiyay la yiraahdo arrinta waa culusta markii horreysay in la garabsado arrinta waa culusta hadday culus tahayna oodan camadsa u kala sarreeyaan baa loo guraa waxaanu wadiye xageenu ka bilowna waxaanu ku niri dee waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiye horta hala fulin dee markaasaa la bilaabi doona haddaan tii horeba la fulin haba yaraatay haba weynaatay haddaan kuwii hore la fulinayn maxaa tuduma laga bilaabi sidii baa lagu guddoonsaday waxaa loo saaray guddi wasiiraha waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso oon idiin sheego guddidaa wasiirada ah iyo adna oo wasiir karhoona ah iyo Maxamed Biixi oo wixii uu aqoon iyo awood hayay maanta shirka kaga qayb galay oo isla la socday oo telefoonka la socday iyo wasiirada shanta halka fadhiya Maxamed Biixi baa shirka ku jiray oo isagu Nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aad iyo aad u adag waxa hubaala shanta halka fadhiya afarta wasiiriyada saddexii cisho dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horeeyaan tobankay soo baxay saacadda qadada mooyinka kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadaysay dhiig karaya banaanka iyo gudaha loo soo baxayay waayo dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira masdaradu waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxa jira nasiib wanaag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba aniyo Saleebaan waxaan odayaal noqon war baruuk hadiya degdeg meeyne inaga hadan leh baruuk hadiya soo boodina ku celino halka ay ka soo boodeenba nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo boolay ana xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa boos
laakiin dowladda Jabuuti guntiga isha iska ragtay madaxweynaha oo isa soo taago yiri ma waa la kala gar qaadanaya waa inaan soo saara communique lagu wadayo waxa la wehelinayay dowladaha shirka waday oo qolada Mareykanka ugu weyntaa oo yiri ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garnayay waa loo kala gar qaadanaya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku andacoonayay in Somaliland 29 sano ay jirtay ay dhisatay dawlad taam ah oo shaqeynaysa hase yeeshee beesha caalamka ay arintaasi ka dhaga adeegtay waxa uu diray fariin qoto dheer dadka hawshan qaban qaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabnaa Somaliland mid baa laga rabaa qoladaynu saayno waxba kama rabno xamar ma wada hadlayno waynu isaynaa waynu iskhilaafsanahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeenu u sheegaynaa halkaynu kala taaganahay oo qadiyaddeena inaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadka isqabto wuu kala saaraa ama wada hadal baa lagu kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkaan uga sheegaya idinkaa Soomaaliya heshiiye ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo Mareykanka ugu tuwaya waxaan u sheegaynaa laba dawladood istogay baan hor ikhtiyaaraya dawladdu waxa laga gudbay 19 laba dawlad baan kala dhisay laba system baan kala qaadnay waxaad ictiraafteen oo ictiraafkii naga dhaxeeyay siiseen oo dhaqaale naga dhaxeeyay siiseen oo barsoolkii naga dhaxeeyay siiseen qolada Soomaaliya ee marka annaga cidaan naga tagay annaguna yeelin mayno qola adintaa wada siiseen inaanu la hadalno ama u baryatayno ilaa wixii naga dhaxeeyay dhex noqoto oo ruuxay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa si wata ayaa xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ugu baaqay inay u hadlaan si mas'uuliyad ku jirto marka ay la hadlayaan shacbiga Somaliland mas'uuliyadda kolba cid baa siyaasadda hogaamisa ee imka siyaasadda haya ee golayaal leh ee xisbiya leh waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas'uuliyad oo nin kale waxaan ahay golaha ama xisbi baan ama siyaasi baan markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas'uula oo ka fikiraya Soomaaliland dad xagadaysa la dhageysan maayo xisbiga anagu reehbada la dhageysan maayo gudoomiye xaafadooda ku wareegaysanaya meel ina gaarsiin maysa taas inaynu si caalami oo fikirayno baahan madaxweynaha Somaliland ayaa arrin ka farxisay guud ahaan shacbiga munaasabada ka soo qayb galay munaasabada ka sheegay isagoona sheegay in muwaadin u dhashay Somaliland oo muddo 7 sano ah arrimaha argagixisay ugu xidhnaa dalka Djibouti oo kala hadlay madaxda dalkaasi si muwaadinkaasi dib loogu furo gal dacwadeedkiisa waxa jira nin muwaadina oo reer Somaliland oo 7 sano Djibouti ku xidhnaa oo arrimaha afalka argagixisay u xidhnaa oo tirsanaya cadaalad darrada xukuumaddiisa helin waan kala hadlay dawladda Djibouti farkiisi dib loo furayaa insha Allah soo natiijo ku yaalay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga uu hogaaminayay ee ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay dalka Djibouti ee maanta ku soo guriyay noqday caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayay shacbigu si weyn u soo dhaweynayeen iyadoona bulshada Somaliland u dhagtaagaysay maatika madaxweynaha iyo waftigiisa Zakariya Sudaysi iyo Muxyidiin Arido telefishinka caalamiga ah Sahan Hargeysa.